maalmahan dunida waxaa laga xuseeyay maalinta qaxootiga adduunka. Xerada Dadaab waxaa ku dhaqan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyin kala gedisan haysta. Dadkaasi waxaa ka mid ah qoys Soomaaliyeed oo 12 gaaraya oo 6 ka mid ah indhaha la yihiin. Dadkaasi waxaa ku jira aabaha qoyskaasi. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha VOA Cabdiweli Cabdi Maxamed. Halkan waa hoyga qoys ka kooban 12 qof oo 6 ka mid ah ay yihiin naafo dhanka indhaha ah. Waxa uu si dheer tabaryari dhaqaale iyadoo aysan jirin wax hanti ah oo ay maanta ku naaloonayaan marka laga soo tago quudka yar ay hay'adda UNHCR bixiso. Qoyskayga waa 12 aniga iyo hooyada aan ku nahay 12 caruurta aan dhalnay waa 10 cunug. 10taas cunug waxaa curyaankan dhoole ka ah waa 6 aniga aabaha markaa la igu dara waa 7 waxaa handhaha ka qabta dadkaas qoyskaas oo familkaas oo idil waxaa handhaha ka qabta 4 cunugoon dhalnay iyo hooyadii dhashay. Aabaha qoyskan ma shaqeeyo, haddana nolosha qaxootigu way adag tahay. Haddaba qaabkee ayay u nool yihiin? Nolosha aan ku noolnahay oo xaalada qaxootiga aan ku noolnahay waa duruuf aad u adag oo xaaladda la soo koobi karin. Haddii aniga niman aan shaqaynaynin oon alxamdulillah meel kale waxay u imaanaynin waa dareemaa nin walba xisay waa ogyahay waana dareemaa aabihii aan shaqaynin aan ahay duruufta aad bay noogu adag tahay. Waxaan qaadana waa qaxootigan waxaas qaato oo ugu filnaan oo markaas baan ugu filnaan. Waxbarashadu waa laf-dhabarta horumarka qof kasta, balse carruurta qoyska naafada indhaha ah ma yihiin kuwa awooda inay wax bartaan. Waxaa iskuulka dhigtaa 6 cunug baa dhigata 4 ka mid waa curyaamin oo noolyaal leh. Carruurtaas dhibaatada iskuulka ay ku qabaan wax la soo koobi kara maaha. Carruurta ay la socdaan ayagoo gadaal markay ka maraan dhagax ku tuuraan, madax bay ku dhuftaan, dhagax waxay ku dhuftaan, qorxay bay wadada u dhigaan. Maalin waxaa dhacday meelo oo maaragtay nimankan nadaafadda oo dab ay ku gubeen ya cunug ka mid ah asiga socday si kabtiisa isku lacaan agti humburtay lugti humburtay cunug ay si imaadeen oo iskuulkaas u jeeday sababta awgeed. Marka iskuulka laguma qaado baabuur oo malaha oo lagu caawiyo looma haayo ayaga lugtooda waa la wada way shabsadaan nagay kor imaadaan waa caya aabooda nool waay ayagana nool waay war waa kuwii sidaa ma yidhaahaan. Aabahan ayaa muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan maadaama uu yahay shakhsi naafa ah oon iskii wax u qabsan karin. Walaalahay muslimiinta waxgaradka culmaa u diinka muslimiinta dhan muuminiinta dhan waxaan u diraa baaq naxariis leh aan u diraa baaqaas oo ilaahay xaggiis ilaahay sababta ilaahay dartiis awoodiisa qaadirnimadiis oo koonkan ugu keenay naxariistaas inay ii sameeyaan iigu kaalmeeyaan ilaahay dartiisa iigu kaalmeeyaan intay maqlays ama muuqayga arkays waxaan muslimiinta u sheegaa inay iigu kaalmeeyaan aniga carruurtayda ay igu gargaaraan. Cabdulaahi Cabdi Xasan waa aabaha qoyskan ay duruufta bini'aadanimo ka muuqato. Haddaba qof kasta oo daawada warbixintan waxa uu dareemi karaa xaaladda dhabta ah ay qoyskan ku nool yihiin. Waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Cabdiweli Cabdi Maxamed, VOA, Dadaab.